guryaha biyigelinta hashaas tuban kulal iyo qabow kaaga dhigaya injineer biyigelin aan ahay aniga amu ale Allah ku barakeeyo waxaan ka rabaa abukate amu iyo Allah ku barakeeyo waxa taas ka dhafto su'aal hada qabto weydii markaad way maxay tahay meesha waa ma hasan tahay okay meesha masaajid biya su'aal hada qabto su'aal toos weydii wax kale lagu ma ogolo haye okay su'aal wuxuu ahaa mid kamid ah muuqaaladii ugu hadalhaynta badnaa sanadkan 3 Agoosto ayaa la isla wadaagay waana Nasra Abuukar Cali oo Soomaaliya ku matalaysay tartanka ciyaaraha fudud oo ka dhacay wadanka China waxa muuqanaya Nasro oo dabaadi ka ah ciyaartoydii kale ay la ciyaaraysay taasi oo hadalhayn balaaran abuurtay shacabkuna ay falcelin ka sameeyeen isla markaana noqotay fadeexad ay wajahday wasaaradda ciyaaraha maxamed dheeraha shantaas aan kugu sheegane shantaas ay dhikaarna waa haystaa haday UNDP ay dhikaara ka haystaa gaashaanlaha militariga waa haystaa wasaaradda caafimaadka dhikaarka waa ka haystaa kii dhakhtarka isbitaalka waa ka haystaa ma fahamtay soo think marka adiga horta goorma iga sakeeyay war aniga ma waxa marka de marka dhikaarka aragto inaad iga degto waa ku qasbantahay moogtahay waa qaar kamid ah muuqaaladii ugu hadalhaynta badnaa ee sanadkan lagu wadaagay baraha bulshada waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkan qaar kamid ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan idlaanaya ee 2023 dalka ka dhacay inaga oo soo koobi doona faahfaahinta dhacdooyinkaasi isla markaana idinla wadaagi doona maalmaha iyo taariikhaha ay dhaceen haddii aan ku bilaabo 1 January ee sanadkan idlaanaya 2023 waa maalintii koowaad ee sanadkan uu bilowga ahay magaalada Masagawaay oo ka tirsan gobolka Galgaduud ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya kala wareegeen al-shabaab oo muddo dhowr iyo 10 sano ah deegaankaasi ka arriminayay Masagawaay ayaa ka mid ahayd goobaha istiraatiijiga ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo bartamihii sanadkii ka horeeyay ee 2022 ka bilaabay guluf looga xoreynayo ururka al-shabaab dalka ay ka mid ahayd deegaanadii istiraatiijiga ahaa ee muhiim ku ahaa in ciidamadu ay la wareegaan walow Masagawaay qabsashadeedii kadib ay dhowr marxaladood gashay oo al-shabaab ay weerar kala duwan ku soo qaadeen ugu dambeyntiina ciidamada dawladdu ay ka baxeen walow maalmahan aagaga Masagawaay ay kaga furan tahay al-shabaab dhacdooyinka ugu waaweynaa ee kale waxaa ka mid ahay 3 bishii January ee sanadkan 2023 waxaa magaalada Laascaanood ka curtay dagaalka sababay in Soomaaliland laga saaro deegaanadaasi kadib markii 27 December ee 2022 magaalada bartamaheeda lagu dilay mid kamid ah siyaasiyiintii deegaanka ninkaasi dhalinyarada ah oo lagu magacaabi jiray Cabdifataax Cabdullaahi Cabdi Hadraawi oo kamid ahay xubnaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka Soomaaliland ee wadani ku matalayay deegaanadan ayaa lagu dilay masaajid oo salaada cishaha ku soo dukaday hortiis xilli habeena dhacdaasi kadib dadka deegaanka ayaa kacdoon sameeyay waxaana ku qasbanaatay Soomaaliland in ugu dambeyntii ay ka baxdo deegaanada loo yaqaano SSC marxuum Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani wuxuu ahaa nin oday ah sheekh culimo ah isla markaana da'diisu ay ahayd 65 jir ah eedeysanaha nin asaga dhali karo oo sida aabihiis oo kala ah ayuu wuxuu u dilay si bareera waliba 5,000 oo shilin Soomaaliya lacag qiimo lahayn oo $1 xataa ka sii hooseeso ayuu si bareera ugu dhuftay xabad 10 bishii January ee sanadkan idlaanaya 2023 degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa lagu dilay nin danyar ah dhigaha ama maqalka naafo ka ahay laguna magacaabi jiray Abubakar Maxamed Nuuraani Abirimo waxaa la sheegay in ninkaasi loo dilay 5,000 oo shilin Soomaaliya waxaana dilkaasi ka dambeeyay mid kamid ah ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa canshuurta ururiya kadib markii la sheegay ninkaasi in uu bixin diiday 5,000 ee shilin Soomaaliga ahay ayaa lagu hortoogtay dukaan yar oo ka lahay mid kamid ah xaafadaha isku raranta ah ee degmada Xamarweyne
sidoo kale dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa 16 bishii January sidoo kale waxay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay la wareegeen degmada Xaradheere oo dhacda koonfurta gobolka Mudug wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo maalinimadaas la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab dhowr iyo 10 sano kadib ay ka holeeleen magaaladaasi ciidamada dawladda markii ay la wareegayeen magaaladan wax dagaal ma dhicin oo al-shabaab ayaa horeyba isaga sii baxay waxayna magaaladaasi ku nasiibtay in sanad kadib ay ciidankii dawladda Soomaaliya joogaan isla markaana laga hirgeliyay nidaamyadii dawliga ahaa sidoo kale 17 isla bishaasi waa maalin kadib markii la wareegay magaalada Xaradheere ayaa sidoo kale iyadana al-shabaab lagala wareegay degmada Caleer oo iyana ka tirsan gobolka Galgaduud Caleer ayaa sidoo kale kamid ahayd deegaanada istiraatiijiga ah ee dagaalkan uu higsanayay inkastoo dib looga soo gurtay magaaladaasi kadib dhacdooyin waaweyn oo ka dhacay gobolka Galgaduud haddana dawladda Soomaaliya ayaa dhowr maalmood ku sugnayd halkaasi iyada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay qabsashada magaalooyinkaasi muhiimka oo ku tilmaamay inay ahaayeen hadafka koowaad ee dadka Soomaaliyeed ay higsanayaan si ay al-shabaab isaga xoreeyaan isla wararka dagaalada 20kii January sanadkan 2023 al-shabaab ayaa weerar arooriyo hore ku qaaday degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka dagaal qaraar oo saacado socday kadib waxaa la weerinayaa khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalkaasi waxaana kamid ahaa saraakiishii halkaasi ku nafwaayay tali ku xigeenkii ciidanka Danab gaashaanle Xasan Toore ayaa kamid ahay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan hogaankii ciidanka Danab ee dagaalkan hormuud ku ahaa gaar ahaan gobolka Hiiraan oo kamid ahay ciidamadii hogaaminayay halgankii xoreynta gobolka ee udub dhaxaad ku ahay dagaalada dalka ka socda 27kii bishii labaad ee Febraayo ee sanadkan si ilaanaya 2023 xilli habeena isgoyska Siinay ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacday dhacdo shacabka Muqdisho ay ka argagaxeen kadib markii ay isku dagaaleen halkaasi ilaalada gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Suleymaan Fargax iyo ciidan nabad sugid ah oo ilaalo ka hayay isgoyska Siinay ciidamada ayaa isu adeegsaday hub culus taasi oo sababtay in ay halkaasi ku dhintaan dad shacab ah oo saarnaay gaadiidka loo yaqaan bajaajta oo isgoyskaasi aad u isticmaasha sidoo kale dhaawacyo ayaa soo gaaray qaar kamid ah mas'uuliyiintii uu dagaalku qabsaday oo kamid ahay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Suleymaan Fargax 15kii bishii saddexaad ee Maarso sanadkan si ilaanaya 2023 maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ku filiday 3 nin oo ku eedeysnaa al-shabaabnimo oo kamid ahay Dr. Fanax ninkaasi muuqaalkiisa aad ayaa warbaahinta loogu wadaagay waxaana sababay in uu markaasi haystay darajooyin ciidan iyo sidoo kale shahaadooyin la xiriira culumta caafimaadka isagoo ka shaqeeyay isbitaallo ku yaala dalka haba ugu badnaatay caasimadda Muqdisho Dr. Fanax oo laga baahiyay documentary ay ka duubtay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in dhowr iyo 10 sano uu ku shaqaysanayay xirfado kala duwan isagoo sidoo kale hay'adaha dawladda ku dhex jooga inuu yahay generaal ciidan muuqaalka ninkan ay dadka shacabka aad u wadaageen maadaama mihnada caafimaadka ee uu ka shaqeynayay iyo ficilkii uu ku howlanaa ay aad u kala fogaayeen dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay sanadkan 2023 waxaa kamid ahay xilka qaadistii Cali Jeyte Cusmaan gudoomiyihii gobolka Hiiraan 18kii Juun
ayaa la soo saaray digreetadaasi oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen laakiin Cali Jeyte ayaa ku gacan sayray aqbalidda warqadaasi isagoo sheegay in uu isaga baxay maamulkii Hirshabelle wuxuuna ku dhawaaqay Hiiraan State inkastoo mashruucaas uu dib ka fashilmay oo loo magacaabay ugu dambeyntii inuu hogaamiye u noqdo ciidanka macawisleyda haddana ku dhawaaqistii Hiiraan State ee Cali Jeyte iyo diidmadii warqadda xilka qaadista ee ka soo baxday maamulka Hirshabelle ayaa hadalhayn ka abuurtay iyadoo xildhibaanada federaalka ku matala deegaanada maamulkana ay ku kala qaybsameen dhacdadaasi sidoo kale dhacdooyinkii waaweynaa ee dalka ka dhacay sanadkan 2023 waxaa ka mid ahay weerarkii kuliyadda Jaalasiyaad oo dhacay 24kii bishii Juulaay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay inuu dhex galay ciidan tababar u socday gudaha xarunta Jaalasiyaad dhacdaasi ayaa aad u qabsatay warbaahinta iyadoo dowladda Soomaaliya aysan war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulamadoodii kaga hadlay dhacdaasi iyagoo sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan inay faahfaahin ka bixiso sida uu ninkaasi u galay xerada ciidanka laakiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo 29kii bishii Juulaay hortagay golaha shacabka ayaa halkaasi waxa uu ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay saraakiil ciidan u soo xirtay dhacdaasi isla markaana baaritaanka uu socdo walow ilaa iyo hadda aan natiijo laga soo saarin saddexdii bishii 8aad 2023 muuqaal ayaa ku baahay warbaahinta bulshada Nasr Abuukar Cali oo ahayd gabar Soomaaliya ku matalaysay tartanka ciyaaraha fudud oo ka dhacay wadanka China ayaa kaalinta ugu dambaysa ka gashay tartankaasi muuqaal laga soo duubay Nasr ayaa muujinayay iyada oo dabaadi ka ah gabdhihii kale ee tartankan qaybta ka ahaa wasaaradda ciyaaraha ay dhacdaasi u soo jiiday fadeexad weyn waxaana xilkii laga xayuubiyay gudoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud oo la sheegay in gabadhan ay iyadu mas'uuliyadda diritaankeeda lahayd sidoo kalena ay habarar u ahayd shantii Agoosto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu xarun ku meel gaar ah ka dhiganayo magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga dabageliyo dagaaladii dalka ka socday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo uu si ku meel gaar ah ugu shaqeyn doono madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda u leh dowladnimada Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska ayuu ka shaqeyn doonaa intuu ku sugan yahay magaaladan taasoo ay ugu horeyso amniga iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda koobaad uu ka dhigtay ayaa waxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo bil ku dhow ku sugnaay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isagoo halkaasi ka waday howlihii dagaalka intii uu madaxweynuhu ku sugnaa Dhuusamareeb waxaa la wareegay degmada Ceelbuur oo ahayd magaalo qadiimiya al-shabaabna ay muddo dheer ku sugnaayeen laakiin dib ayaa looga soo gurtay ilaa iyo hadda shacabka Soomaaliyeed ayaa su'aal gelinaya guusha ama guuldarrada safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Dhuusamareeb 9kii bishii 8aad ee Agoosto sanadkan 2023 muuqaalka Abuukar Shooble ayaa qabsaday warbaahinta bulshada kadib markii maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyay ninkan oo ku eedeysnaa inuu isticmaali jiray farsamooyin uu sixir ka mid yahay si uu dumarka Soomaaliyeed ugu galmoodo Shooble ayaa maxkamadda la horgeeyay iyadoo lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah waxaa la sheegay ninkan inuu gabdhaha muuqaalo ka duubi jiray kadibna uu ku baahin jiray baraha bulshada sidoo kale 19kii Agoosto xilli habeena degmada Dharkeenley gaar ahaan Kaawagoday shacabka ayaa
xilligii jiifka waxa ay markaasi ku baraarugayeen rasaas dushooda ka dhacaysa kadib markii ciidamada ammaanka ee xasilinta caasimadda muqdisho ay weerar ku qaadeen guri uu deganaay jenaraal sheegow axmed cali oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal sheegow axmed cali ayaa lagu eedeeyey in ilaaladiisu ay dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada dharkeenley dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhac u geysan jireen weerarkaasi iyo soo qabashadii sheegow ayaa sababay banaanbaxyo waaweyn oo qoomiyadiisa ay ka dhigtay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana sheegow ugu dambeyntii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale raggii la eedeysnaa ee ahaa ilaaladiisa ayaa iyagana xukuno kala duwan lagu riday 25 Agoosto dhacdo weyn ayaa ka dhacday deegaanada SSC gooja cadde oo ka mid ahayd maalihii loogu hadalhaynta badnaa sanadkan ayaa laga wareegay ciidankii Somaliland gooja cadde ayaa furan u ahayd Somaliland waxayna halkaasi ka soo ridaysay gantaalo ama sawaariikh lagu garaacay magaalada Laascaanood oo ay ku geeriyoodeen dad shacab iyo haldoorkii deegaankan oo ka mid ahay awaan jaamac kiriyo sidoo kale dhacdooyinkii waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaa ka mid ah 26 Agoosto deegaanka Coosweyne oo 12 kiiloomitir u jira degmada Caldheer ee gobolka Galgaduud ay al-shabaab weerar ku qaadeen halkaas ay ku sugnaayeen guutooyin ka mid ah ciidanka Gorgor khasaare weyn ayaa ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed khasaarahaasi ayaana sababay in ugu dambeyntii ciidanku ay soo faarujiyaan deegaano waaweyn oo ay ku sugnaayeen oo ay ka mid yihiin Caldheer Masagawaa iyo sidoo kale deegaanada hoostaga dagaalkii Coosweyne oo ciidanka si weyn u dhaawacay qulubtooda iyo sidoo kale awood ahaanba ayaa lagu eedeeyay mas'uuliyiintii ciidanka hogaaminayay inay ildoofeen xaradii ciidanka la dejiyay iyo qorshihii halkaas lagu geeyay intaba ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ciidanka kula kulmay degmada Aadan Yabaal maalmo kadib markii ay soo faarujiyeen furimaha ayaa sheegay in la xisaabtamayo saraakiisha ka dambeeyay ciidankaasi waxaana loo xiray sida aan xogo kala duwan ku helnay dhowr sargaal oo hoggaan u ahaa ciidanka Gorgor saraakiisha lagu laayahay weerarkaasi waxaa ka mid ahay Shaah Macabe oo si weyn ciidanka looga dhex yaqaanay sidoo kale hormuud u ahaa ciidankii badbaado qaran ee mashruucii muddo kororsiga sanadkii 2021 Muqdisho kula dagaalamay sidoo kale Soomaaliya ayaa dhacdooyin waaweyn dabayaaqada sanadkan guulo taariikhiya ka soo hoyday dunida ku biiritaanka bulshada bariga Afrika ayaa Soomaaliya u ahay mashruuc ay muddo higsanaysay wuxuuna guuleystay qorshahaasi 24kii bishii 11aad ee November sanadkan 2023 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay in Soomaaliya ay gaartay guushaasi taariikhiga ah waxayna dawladda Soomaaliya ku macnaayday ku biiritaanka bulshada bariga Afrika inuu yahay mid dadka Soomaaliyeed ay faa'iidooyin waaweyn ugu sugan yihiin sidoo kale 1 December ee sanadkan ilaanaya dawladda Soomaaliya ee laga qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarneyd in ka badan 30 sano 1992 ayaa Soomaaliya la saaray cunaqabataynta hubka ilaa ay xilligaasna uu xadidnaa dhaqaaqa hub soo gelista ee Soomaaliya madaxda dawladda Soomaaliya ku macneeyay in tallaabadan ay guul weyn u tahay dagaalka lagula jiro al-shabaab 13 December Soomaaliya sidoo kale laga cafiyay deyntii muddada dheer lagu lahaa in ka badan 5 bilyan oo dollar ayaa Soomaaliya laga saamaxay barnaamijka deyn cafinta Soomaalida ayaa sanadihii la soo dhaafay dawladihii kala dambeeyay ee dalka ay ka shaqeynayeen waxayna xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre nasiib u yeelatay in iyada lagu soo gabagabeeyo Soomaaliya ayaa aad u soo dhaweeyay tallaabadan waxaana madaxda Soomaalida ku tilmaameen inay tahay mid taariikhiya shacabka Soomaaliyeed wax badan u tari doonta gabagabadiina dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa AMISOM oo isaga baxday filla Soomaaliya
iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen amniga guud ee madaxda qaranka. dhacdaasi ayaa ku soo beegmantay 17 December ee sanadkan 2023. Allah u naxariistay marxuumad Khadiija Maxamed Diiriye ayaa iyana geeriyootay 20 December ee sanadkan. Khadiija Maxamed Diiriye oo kamid ahayd wafdi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay barnaamijka Heritage ee ka dhaca wadanka Djibouti ayaa ku geeriyootay isbitaal wadankaas ku yaala. inkastoo aad looga hadlay sababta geerida Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, haddana aas qaran ayaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho iyadoo diyaaradiisa ee garoonka ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ay kamid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, guddoonada baarlamaanka dalka iyo labada gole ee dawladda. ugu dambeyntiina waxaa lagu aasay isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa Cabdixafiid Nuur oo idinla socodsiinayay barnaamijkan kooban. nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees.